بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوديال ku soo dhawaada meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogtaan barnaamijkan oo ah barnaamij ka duwan barnaamijyadii noocii hore ee aad daawan jirteen barnaamijkan oo aan ugu magac darnay Axmed Soomaali Show maanta waxa inoogu marti ah laba hablood oo hal abuura labada hablood waxa weeye Lucky Jeswar iyo Nicima Abwaan Qorone way kala duwan yihiin barnaamijyadu sida loo kala duubo way kala duwan yihiin dadka sida loo kala waraysto barnaamijkan waxa uu barnaamijyadii hore kaga duwan yahay waxyaabo aad ka dheehan kartaan inta aynu ku guda jirno inta idinka ayaan idin deenayaa iyo baarashadiisa iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay laakiin imika toos ahaan aynu bilowno barnaamijkeeni horta marka horeysa ku soo dhawaada walaalayaal mar labaad aad iyo aad mahadsantahay Axmedow wad mahadsantahay alfa marra dawadayaasha hadana soo yara sheego Lucky Jeswar un baatiriye mala Jeswar ka inkastoo inta waxaan ka baqayaa inay abay xantaan yiraahdo inta muxuu weeri jiray sifado yiraahdo Lucky aad Yusuf oo ka sii jeclaa wad mahadsantahay barnaamijkaaga iyo martida sad nagu soo marti qaaday iyo barnaamijkaaga quruxda badan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa alfa marra insha Allah de su'aalaha aan ku weydiinaya waxay noqon doonaan su'aalo ka duwan barnaamijyadii hore wixii la isweydiin jiray walow ay u badan yihiin si bilaa turxaan aynu isu weydiinayno insha Allah waxaan rajaynayaa balna diyaar noqoto okay dhinaca kale bal aan u wareego dhinaca Nicima Abwaan Qorone okay horta aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa kulay waa kulan baxsan waana habeen boqoran runtiina mahad iyo milkaba waxaan u hibeenayaa Maxamed Soomaali Show inkastoo anigu magaca dareen ka qaboon leeyahay kan Maxamed uun baa sidaan Nicima la yiraahdo waxa magaca dhaqeeda ka saaray isaga uu sheegi doonay ilaa magacu waa inaga dhaxeeyay aad baad u mahadsan tahay magacaygu Nicima Abwaan Qorone ma aha laakiin waa Nicima Abwaan Axmed Colaad Qorone aad baad u mahadsan tahay mar labaad iyo saddexaad waa raad oo maqlaysaan okay dilabadiinuba waxa su'aal kaliya badi weydiiseen inkastoo aan su'aal u baahnayno soo dhaweynta waxaad iga filcilisaan aan u baahnaa haddana iyadoo sidaas waxaan samaynayaa kelmadda naanaysta iyo waxa iyada mar dambe ayaan ka jawaabi doonaa okay imika bal waxaynu intaas marka aynu soo dhaweynta iyo hawlaheeda aynu u dhamayno kaga soo baxno waxa aan su'aasha ugu horeysa ee aan doonayeen aan weydiiyo hablaha ay tahay suugaantu way wajiye badanta iyadoo sida u wajiye badan haddana marka ay tahay gabay tiraab ama maanso waxa badahaas inta badan loo tiriyaa ragga oo halka dumarka loo tiriyo buraanburka iyo sitaadka miyaanad aydan islahayn buraanburkii waa soo dhaafteen oo waxay ahayd inaad gabaygun aydan gabayga gelin aad buraanburka iyo hawlihiisa ku joogtaan horta Axmedow mar kale wad mahadsan tahay su'aashana waxa weeyaan waa su'aal meesheeda taala adigoo kaliyana ma aha waxa weeyaan horena waa naloo weydiiyay horena waa naloogu dhaleecay adigu su'aal baabad naga weydiisay waxaad fursad noo siisay inaad jawaab naga hesho laakiin waxa dhacday raggu inta badan way yiraahdaan xadkiina waa soo dhaafteen oo lugtuna haday jeeniga dhaafto way jabtaan waa inagu yiraahdaan raggu uma arko badaha suugaanta way badan yihiin sitaadka iyo buraanburka iyo hees hawleedka kale dumarku yaqaanaanba waxay ka mid tahay badaha suugaanta oo dhan marka la soo wada geeyo amaansa la yiraahdaa gabaygu waa boqorka suugaanta raggu waxay boqorka suugaanta noogu diideen ma garanaye dumarku waa kuwa boqortooyada Ingiriiska gabadh baa kunto boqoradka waxa weeyaan gabayga aniga iyo Nicima iyo in kale oo dumar oo fara badan aan yarayniba waanu ku jirnaa oo waanu qaadanay xubinta gabayga sababaha naloogu dhaleecaynayo raggii hore maadaama dumarkii hore waxay leeyihiin ay guri joogu badnaayeen ragga aysan ka ag hadli jirin gabayga iyo waxaan aysan aqoon ugu yaraan way hadli jireen dumarkii hore waa kuwan buraanbur ku hadli jiray waa kuwan cawiskooda u heesi jiray waa kuwan waxarahooda iyo caruurtooda iyo wax kasta u heesi jiray waxa weeyaan waxay raggu la yaaban yihiin sabab may dumar u gabiyeen Soomaa su'aasha ka jawaabid mudan waxay dumar u gabiyeen sababta uu af Soomaali u jiro laano gabaygu waa luqad Soomaali waxa lagu gabiyo af Soomaali maadaama af Soomaali ku hadlayaan af Soomaali ilaa heerkay ka gaarayaan bay soo bandhigayaan dumarku taas ayaan anigu kaga jawaabayaa oo maqlaysaan waxa inta badan qofba meel buu ku tiiriyaa ama waranka ku tuura laakiin iyada sida aan dareensanahay waana saxsan tahay af Soomaaligiina waxa ay tiri waxa u baahan yahay hadba wad maqlaysan sida ay ugu jawaabtay bal aynu dhinaca Nicima eegno
horta mar labaad oo aad mahadsan tahay su-aasha haddii aan anigu dhinacayga iska taago bal jawaabtu waxay ila muuqato horta ragga Soomaaliyeed waxa ku jira isla weyni ah inaanay gabadhu waxba noqon karin sida u badan yihiin xataa waxaad moodaa waqtigan 2016 la marayo wali inaanay raggu aanay soo gaadhin oo aanay garawsanin in ay dumarku xataa xilliyada qaarkood ragga ka awood badan yihiin sababtoo ah waxa la yiraahdaa hooyo kasta afka iyo yani sugaantu iyada ka soo bilaabantaa hooyada ilmaheeda u heesaysa iyadoo hees hawladu qaadaysa dhabarkana ku sida ilmihii markii waxaan u jeedaa hees caruureed dan ilmihii hooyadii ay ku soo barbaarisay suugaanta iyo dhaqankii oo halkan ka soo barbaaray oo afkiisa la soo qabsaday oo iyadu soo dhistay ayuu ninku aaminsan inaanay gabadhu waxba samayn karin maxaa loo yidhi afka hooyo intuu jiro gabadh kasta oo adduunka ku nooli waa ay gabi kartaa heerka ugu adag oo ah boqorka gabayga ayay ka gabi kartaa laakiin waxaan oran karaa waa xaqiraad ragga Soomaalidu ay xaqiraan dumarku kaalinta ay nolosha kaga jiraan saas aniga ila agtaaragtidayda inta su'aasha marka aynu soo dhaafno generally marka dee caadi loo sheekaynayo ama si bilaa waxyaabo dambe aan laga warwarayn ama caadi loo sheekaysanayo waxaynu masalan kale imika oran karnaa ragga dee inkastoo aan anigu ka mid ahay haddana dee waa micnaheedu waxa weeye inaan idhaahdo raggu waa waxyaabaha ilaahay abuuray waxyaabaha ugu cajiibsan ama waxyaabaha ugu wacan inkastoo dumarkuba ay yihiin feel xagga dambe laga soo jeexay okay su'aasha labaad ee aan doonayo bal inaan weydiiyo waxay ka mid tahay waxa weeye hablo badan baa jira oo ay sugaanta ku jirto guryihii jooga aan soo baxayn oo aan sidiinoo kale intay waxooda bulshada u soo bandhigaan aan ka jawaabayn ama ka baaqcelinayn wixii ay bulshadu doonaysay in ay ka wacyigeliyaan ama goobaabo uga sameeyaan okay idinku waad ka duwan tihiin bulshada waa soo dhex gasheen gabayadiina dadka way dhex mareen waxyaabo badan baa laga yaabaa in lagu qaato waxyaabo badanna lagu dhalilo dhaliltaan isku dayno waxyaabaha lagu sheego ama waxyaabaha lagu ammaano way jiraan inta marka la soo dhaafo su'aasha labaad ee aan doonayo in weydiiyo waxa ay tahay hablaha imika guryaha ku jira ee imika misanoo kale ina daawanaya ee baaqa ama fariinta aad doonaysaan in aad u dirtaan idinkoo habla oo hal abuuraa waxay tusaale ahaan noqon kartaa ama aad u diraysaan waxa weeyaan su'aashaadii weydiisay oo habluhu maxay guriga uga soo bixi waayeen oo suugaantooda u soo bandhigi waayeen fariinta aad doonaysaan in aad u dirtaan fariinta aan doonayo inaan u diro habluhu waxa weeyaan horta wax la isku dhaafo wax la yiraahdo go'aan iyo ku dhac qofkaas hadduu soo go'aansado inuu wax sameeyo dan waa inuu sameeyaa ku dhac uu leeyahay inuu gudbiyo wuxuu sameeyay tusaale ahaan iminka gabay baan sameeyay gabaygayga intaan sameeyay baan laabay meel bandhigay maalinta aakhire la akhri maayo waxa weyn ifka la akhriyaayo waxa weeyaan wuxuu tarayo uu taraasoma hablaha waxaan leeyahay raggan madaxa idinkaga taagan dhahaya waxa weeyaan gabadh wax ma sameyn karto ku beeniya oo suugaantiina soo bandhiga idinkoon sharaftii iyo dhaqankii iyo diintii midna xoorin iyo kala dambeyntii ixtiraamkii oo waxa weeyaan raggu markay si aynu dhalno aynu waxa weeyaan inagu waxa weeyaan laakiin waxa weeyaan waxa mas'uul bay naga yihiin inagoon ixtiraamayna haddana wixii dhaqankeena iyo afkeena iyo diinteena aan ka hor imanayno soo bandhigno iyadoo lakii jawaabteedu taa tahay bal aynu eegno jawaabta Naciima aniga aragtideeda waxay ila tahay ama yani gabadhu inta badan waxay ka cabsataa yani in waxa ay marka yani ay abuurtay inuu noqon karo waxay hal abuurtay waxaan bulshada macna badan u sameeyeen sida daraadeed gabadhu marka ugu horeysa isgarato inay hirbaha hal abuurnimo leedahay bulshadana ay wax kaga bedeli karto ileen gabayga qof looma sameeyo bulshada ayaa loo sameeyaa sida daraadeed waxaan oran lahaa gabdhuhu yaanay cabsanin hibadooda hal abuurnimo dadka ha ka gadaan iyo fikirkooda si ay bulshada wax u bedelaan way dumarku iyaga wax bedeli karo waa nolosha asaaskoodii baan oran karaa horta su'aalo badan weel jira oo dadku isweydiinayaan marka aynu hablaha wareysanayno oo aan rajaynayo ama aan filayo in hadhow la odhan doono maxaa su'aasha nooca u weydiin weyday maadaama aad la kulantay ama aad wareysi ka qaaday iyadoo saasa wixii faallaa ama wixii hadala dib ayaan u dhigi doonaa iminka waxaynu ka jawaabi doonaa su'aashayda saddexaad aan doonayo bal inaan weydiiyo bini'aadanka qof walba sibuu tilmaamaha u sameeyaa ama qofka uu doonayo inuu dooqiisa noqdo ama qofka dooqiisa abade ah
iyadoo aan kaftan ahaan ka yara dhigayo oo aan dee khibrad ahaanna doonayo bal inaad ka hadashaan markaan doonayo axmed ahaan markaan ahaan doonayo inantaa waxaan u sheegayaa ama odhan karaa inaan dhex dhooban ilka ciridkeedu madow yahay qurux badan maareen dhalaala bal idigu hal abuuro ama hablaatiin waxaad odhan kartaa ninkaasaa rag ugu sita dookhaygu saasuu noqon lahaa adiga oo weliba af soomaali hadlaya markaan ku leeyahay af soomaali hadlaya waxa weeye hal abuurnimo hadlaya horta waa runtaayoo imika inan haddaad tidhaahda ammaano waan ku garanayaa waxaad geysanaysaa hees dhir ka hadlayso oo masas ka hadlayso oo waxa weeyaan biyo ka hadlayso oo roob ka hadlayso oo buura ka hadlayso bad dhegaysanaysaad leesaa intaasaa kuugu eego abwaankaasaa sheegay baad soo odhanaysaa laakiin anigu waan ka soo horjeedaa calaamadaha noocaas ee abwaanintu ka bixinayaan dumarka laannu anigu buur miihi geed miihi masiciideed miihi waxa weeyaan ubaxna miihi ee waxaan ahay aayad ilaahay sideeda u abuuray oo sideeda u qurux badan hadda markaad lahayd waad inan cirid caso waxa weeyaan qurux badan oo madow de inaad aragu xitaa taasaa ka dhaantaba oo waxa weeyaan waa bini'aadamnimadii baad ka hadlaysaa oo wixii structure ahaan qofkiisaad u jeceshahay ayaad ka hadlaysaa marka anigu waxaan odhan lahaa diin iyo dhaqan iyo macnaha akhlaaqiyaadkii inantaa laga arkay ha la sheego baan abwaaniinta ku boorinaya inta ragga inteeda dumarka ahayna ku filin xagga iyaga lakiyay iyadoo sidaasa waa jawaabtaa bixisay bal waxaan ku odhan lahaa waxa aad rag ku xulan karto ama ragaad ku xulan karto maxaa ka mid ah bal noo sharax mala axmed imka nin wanaagsan ba lama hele haddii laakiin la heli lahaa anigu waa kii aan ka heli lahaa ee qalbigayga ku abuuraa diintiisa dhaqankiisa waxa weeyaan siifigiisa dambe in la soo akhriyo macnaa xaggii dambe uu ka yimi waalidkii inuu duca ka qabay inuu qof dhaqan wanaagsan ahaa inuu qof cilmi le ahaa inuu qof diin le ahaa inuu akhlaaqiyaadkiisa ayaan ku dooran lahaa anigoon quruxdiisa waxba ka sheegin raggu quruxda waxba kuma haba layidhi sawaan hooyo Soomaaliyeed bay soo sheegtay intaas laakiin diintiisa iyo dhaqankiisa akhlaaqiyaadkiisa ayaan ku dooran lahaa iyadoo sidaas maxaan ku radaa jawaabtii wayna siisay bal imikana aynu eegno dhinaca Nicima horta Axmed waxaan u maleynayaa qarnigan 12aad ee lagu jiro nin wanaagsan oo duca qaba sida lagu helo way adagtay boqolkiiba 5 baa ku jiro horta 5 taana toosh ku ifin maysid ilaahay hadduu kugu soo beegay inaad kala barqad baxda mooyaane nolosha sanadkan joogta way adagtay si nin wanaagsan lagu helo laakiin haddii la weydiin lahaa ninkaad maanta ka Nicima ahaan dooran lahayd suu eegaan lahaa horta waxa la raggu fil daramo farxumo ma laha sida daraadeed ninka quruxdiisa cayn ku eegay waxba ka sheegi maayo laakiin nin nolosha qoyska ku xeel dheer waa qodobka ugu muhiimsan nin lagu dooran karo bal ka waran haddii uu yiraahdo habar qabtay bariiskii soo dhig ama intuu kursiga halka ka fadhiiso ka soo qayliyo na bariiskii mee war bariis waayo balan horta kaale xabiib wuxuu nidhe noloshu yani way ka badan tahay inta ragga Soomaalidu sida u badan yihiin wuxuu yaqaanaan inta habeenkiina xagga sarirta loo wada gurgurto subaxina la kala yaaco sida daraadeed waxaan nin ku dooran lahaa nin nolosha qoyska ku xeel dheer qarnigan 12aadna la haysta isla jeerkaasna duca qaba aqoon ahaan diin iyo maadiba haday tahay dhisan ixtiraam ma siiya bulshada iyo aniga iyo qaranka iyo qaraabadaba qarankana u shaqeeya daawadayaal imika waxa aynu toos u bilaabaynaa qaybtii hal abuurnimadooda ama qaybo kamida waxyaabaha ay labadan hablood ee ila jooga maanta ay tiriyeen okay Nicima waxa jirta gabay igu maqaal aad ka tirisay habdhaqanka ama siyaasadda dalka ka jirta sida ay tahay ama dadka sida dadka loo maamulo gabay noocaas oo kale ayaa jiray gabaygaas waxaan u mareynayaa magaciisu waxa uu ahaa Duurxul bal gabayga adigoo yar sharaxaya iyo adoo noogu xijiriya bal intaas ka raac bismillaah horta waa run oo gabaygaas waa uu jiraa gabayguna wuxuu u badan yahay sidiisaba sarbeebo sarbeebahana waxa laga yaabaa bulshada maanta intii bandarkan la degay in af Soomaaligii iyo sugaantii la ilaabay sida daraadeed fahamkiisa oo adkaado abayba waxaan ka maqli jiray dadka yaryar waxay u baahan yihiin hadalka in loo calaaliyo si ay u liqi karaan marka maanta ana kaalintiisa fadhiyo waxaan leeyahay bal hadalka gabayga bilowgiisa waxoogaa inuu calaalina bulshadu si ay u liqi karto gabaygu sarbeebaha ku jira iyo maamaha ku jira waxay tusaale aan ka soo qaatay doqonta kama kacday daabankii meermeersaayo kale iyo doqonkii yiri maxaa la iga soo heli bariba waan lumiye iyo doqon xariga lagu xidhayo xusuladii ku sidataa
iyo maamahadi kale ah murti Soomaaliyeed ahayd iyaduna gudiyahay imaad goyn karteen barkii baa kugu jira waxay ku jiraan gabayga run ahaantii waxaan rajaynayaa dadku inay badankooda aanay fahmin laakiin haddii ay fahmi waayaan ay raadeen bal gabaygana aan hadda inoo bilaabo su'aalna waad iga weydiin kartaa min dhamaadka haddii aad wax su'aal wado ama aanad waxba ka fahmin adiga laftarkaaga ama waxaad fahmi waday jiraan iraday ku jiraan si aan u sharaxo inda weydba waa taanandayin deelkii maansada ee hadba aniga oo daayay buu dirirku hooraaye balaandayo tixdan damacsanoon deelka ka higaadsho hadduu gabay dubaax leeyahoo cudur daweynayo ama uu dabiib yahay xumaha daawo lagu maydho diiwaanadii timacaddaa degelka noo yaale waxba sayaanan hadal doora iyo dood idiin geline maahmaahyo dooray bulshadu doqon u aanaysay haddii aan daliilkani ku daro doorkan waxa jooga dambi igama saarnoo tixdan kuugu darayaaye ila daawo gabaygaygan baan kugu dareensiine doqon baan halkii laga duriyo dowga garanayne qufacay la dihatiya inay ducato mooyaane waa waxaan damiir nool lahayn ama sidiirayn darmaday ku jiifto holcani dacal ka soo qiiqi dabqa kama baqtiisa ilaan way dul hogataaye mid kaloo da'deeda haddii aan ka dabageeyo doqon baa hallaabo ka lumay dowgii gurigooda doondoonka goortii la galay qaylo kor u duushay isagoo duleed reer fadhiyo oo dul hoganaya wuxuu yidhi dadkiisii jeclaa ee dub jiray waayo qalad baad ii doondoonaysaan iguna daasheene dibba waanu lumayaa dadyow raacda danihiinna duurxulkiiyo ujeeddada murtida aanu daadago Soomaali wixii doorshay ee mariyay ee duugay halkay diiftu naga raacday baan doonayoo helaye dubba uu cadaawuhu la dhacay gacalna uu daabay oo doqonu soofeeyey baa dooxay maatida ee nacaskii xarkaha lagu daldali duhur cad soo qaatay ma dareemin aayaha dambiya duuga say noqone haddaan ararta sii daajiyoon kuu dul maro weedha duulaan colkii kuugu yimid waad la dirirtaaye walaalka da'kaa weynahoo doqonahoo liita oo nacabka kuu dooxayaan daawo loo heline duurxulkiiyo ujeeddada murtida aanu daadago hasha dabac da'aaday dhashee doobi laga maalay iyo doorkii ay gamashidee deeqba laga waayey gumaystuhu da'duu leeliyey baa daawaha u side ee taariikhda duugga ah haddaan yarahe daymoodo darwiish iyo guray iyo raggii gaalka dabargooyey dargumaysidiiday lahayd oo damiir qaba ee maantana damiin baa beddelay lagu danaystaaye hadday madaxdii lagu diirsan lahaa degelkii baabiisay dalka yaa u maqan niman yahow waan damqanayaa waxba sayaanan hadal doora iyo dood idiin geline waxba gabaguyuu ila durkine aan ka daadaga ee markii dunidu kor guurtay ee sama la daawaystay ee horumar loo doontay ee samada loo duulay dib wixii u dhigay qaranka jabaan doonayaa weli intaa marka aynu daawadayaal ka soo gudubno murtidii ama hal abuurnimadii nicimo abwaan qorane bal imikana waxa aynu u gudbaynaa dhinacii Lucky waxa igu maqaalo ah ama waxa gabayadaada ka mid ahaa gabay la yiraahdo gobanimo gabayga gobanimo la yiraahdaa waxa aan maqlay waxaad kaga qayb gashay silsilad suugaaneed 2014 ahayd oo wacyigelin u ahayd qabyaaladda ama lagaga hortagay inagoo bajaaniskan ka faa'iideysanayna bal gabaygii iyo adiga aan idinka dhex baxo iyo bulshada Axmed oo gabaygaas gobanimo uu jiraa wuxuuna ku jiray silsilad suugaaneed 2014 bilaabantay oo ay dhaqolo dhalinyaro dal iyo dibadba joogo Soomaaliya ay bilaabeen oo la oran jiray dabargoynta qabyaaladda gabayga waxa la yiraahdaa gobanimo gabayga qaybihiisa hore wuxuu ku bilaabmayaa caraar macnaha nabadayn iyo barwaaqo iyo Soomaaliya mid hadii la arki lahaa sidee buu ekaan lahayd weeyaan ay noqonayd dul barwaaqo iyaga ku nool mida wax xaqdiye wax xumaanina aysan dhaxoolin siyaasaddu waa halkeeda laakiin iyadoon xanaf kale na jirin sideedana u barwaaqaysiin bal Soomaalida siday ahaan lahayd inta dambana gabaygu waa duco wuxuuna ku bilaabmayaa geel caana laga soo lisiyo
gaawe wada buuxa geyi roob ku helay iyo dadkoo nabad ku soo gaadhay oo gaabanoo wadhigu uu gees kasta u foofo oo gammaankii uu weli arlada wada garmaameeyo oo goosigii wiil ahaa guuru kaba qaato oo gaaridii gabadh ahayd calafkii goobayso oo geeshcaddii oday ahaa talada goynaayo oo guullahayn nabadgeliyiyo geliyey waa fiican garaad ruuxa lihi wuu yaqaan quruxda goobtaase maangaabse waa gees maraa garanna waaya goohayga waxaan uga socdaa geesta aan ahaye adduunyadan guclaysaan anigu gegi ka joogaaye geeshkii dhaqaaqaba anigu gaabis baan ahaye garan maayo xaajadani way gundheer tahaye ummaddaydan kala guurtaye ee iswada goysay goblamow qabiilkaa i baday oo i gaasiraye soomaali gebigeed hadday gacan walaalowdo gasiinkiiyo hadday wada cunaan midhaha geed saaran oo ay gufaacada ceshaan cadow ku soo guura gurmad iyo hadday leeyihiin gacantogaalaynba xeer lagu go'aayiyo hidiyo guurti talinayso gefka ruuxa keenana hadday gees ka wada joogsan haddii laba garduub loo xidho geedka lagu tiirsho maangaabku wuu giigo oo kii guraacan waabto maatida haddii loo gurmado gaajo laga biiyo agoommaha haddii lagu gallado gebi daryeel oo dhan aakhiro haddii loo guntado guulle laga yaabo oo ay qabyaaladi guurto oo gacal walaalowno reer hebel haddii laga gudbo qaran la goobeeyo ma goblame dadkaygow walle waa gobnimo taasi afartaa geddii uu lahaa xarafka mawgiijay ma gudbiye karaankay murtida guudu hadalkeeda ma gariifay kala goosan iyo gacalis riixaaya golahana ma soo dhigay waxaan geliyey maankayga gowdhgowdh miyaan galay waqay xaajo maan geline intaan danaha gaar hawsha guud heedha ku gadaannay intay geyi barwaaqa haddana gaajoyna laysay guud ahaanba soomaaliyay waad guracanteene ganafkiyo intaad gawska iyo godad iskuud saartay misna gooha igadaa adaa galay huluulaaye afar kalena waa gebagebe gabayga aan meero aan geeshka kacayee dambiyo ubadka guubaabsho mahmahguuna baa tidhi gamcuu wadajir waa guule odayada gaboobiyo kuwa gegida taagtaagan khalad baa la geliyey dadyow goob qudhaan nahaye inkastoo la kala guurayoo qoloba geesaaday inkastoo siyaasigu gudbiyo hadalla goombaarah inkastoo guhaad iyo xanuun laysu wada geystay inkastoo geyigu badan yahoo qoloba meel gaadhay haddana guulo badan baa jiriyo gumar walaaleede lama gano warmaha badan haddaan laga gayoonayne haddaan guulahay igu simayn ummad dhan oo geesha oo guri quriyo yaal dhuluu geelu ramad reemay god qudhaata ruuxee baqiray looma dhowr galo allahayowna garansii mar qudha wadajir guusheeda oo cadowga igu gaadhan iyo nacabka haygoynin allahayow si gaar iyo si guud galabta iyo caawi oo gocor qabiil jaan u go'ay yuuna kala geynin gurmad baan allow kaa rabaa gacanta haylaabin gambada ay ciishiyo cadkaa heedha gabadheede kuwii gabanahaa iyo ilaa guudcad waa ebere allahayow gamcaha kuu fidshee garab isii buuxa ninba goobta ugu daran adaa caalimow garane allahayow garaad noo tashiyo geesi necab gaalka allahayow guhaan iyo midaan qabin gariif waalid allahayow gugii noo dhashaba midaan guddoonsiinno allahayow geyiga nooga dhali guga kan soo foodleh qalbiyada gubanayiyo allow gudaha noo caafi oo qabyaalad naga guuri oo samana guud saar mar uunaan galiilyada tufnee naga jar goocaaqa aad iyo aad bay labada hablood Niciima iyo Laki ay u mahadsan yihiin barnaamijka maanta inta ayaan ku soo koobayaa walow aan jeclaa inaad suugaantiina waxyaabo badan igala soo wadaagtaan ama waxyaabo badan aan ka sii ogaado bulshadana aad u bandhigtaan barnaamijkan waxaa igala qayb qaatay xubnaha Future Brothers oo ay ka mid yihiin Siciid Suldaan, Mubaarak Maariyo, Liibaan Borsad iyo Cabdiraxmaan Dheegsan. intaas iyo intaaynu mar dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nabad nolol iyo naxariis eebbe.